بسم الله الرحمن الرحيم. وعيدروس محمود عبد الله عيدروس شعراوي كميدا هالابورka gobolka Togdheer ama halabuurka Soomaaliyeed maanta halkan waxaan u soo fadhiistay shaqo aan jeclayn inaan qabto ama YouTube-kayga aan mar hore ka qabto hees baan faala ka bixinaya ama waxaan reaction ka dhahaa ma ka bixinaya heestaas waxaa qaaday fanaanka weyn mulaxanka aadka u fiican شخصيا آد وقدري ومتعل هاي فنكيسة أو أستاذ عبد الفتاح مختار وحصور لقي يوتيوبر كوقف عن يوتيوبر هذا الصومالي ذا هيستفيو ريسك هيستوقفيو قبلا هيستني كوقف سبسكرايب تبدأنا هاف مليون صار فيديو ذا قرح بدنا هيساه وخضر وقل إسقنا نهبلي ولا هاي كالنتو الصومالي ذا قشري هيرك وجالسي فنك الصومالي ذا يوتيوب كيسة بقى انت كدب halkan maanta hees Cabdi Fataax Mukhtaar dhawaan soo qaaday baan rabaa in aan wax ka yiraahdo heestan in falada ka bixinayno waxa la yiraahdaa nafta ku muhibbota Cabdi Fataax khaladkuma laha khaladna khaladkuma laha heesta waxa abwaan baa sameeyay Cabdiraxmaan Ilkacsi la yiraahdo laakiin nin kale oo aan magaciisa halkan ku arkay oo la dhaho Xamse Cabdi Bacow ayaa heesta sheegtay oo yiri aniga leh oo u dhiibayna Cabdi Fataax Mukhtaar marka waxa ugu weynaan rabnaa waxa weey inaynu cadeyno heestaas Xamse ma leeyahay mise ninka aan sheegay Cabdiraxmaan Ilkacsi baa leh waxa jira Soomaalida ku soo badanaysa xatooyada ama dhac hal abuurka lagu dhacayo haduu qalin leeyahay iyo haduu hal abuur yahay iyo haduu mulax suugaanta curiyo iyo haduu mulaxan yahayba waxyaabaha fool xumeynaya higooyinkeena ee sanadada dambe soo badanaya arkaysa inta ama qoraal la isku haysto oo buug la isku haysto ama hees ereyada aniga lahaay hebel baa lahaa la isku haysto aad arkayso oo laba hal abuur kala xadayaan oo wax ku badan nimanka fankeena Soomaalida waxyaabaha bahdilay bay kamid tahay dad lacag ku bixiya si ay heesaha u soo saaraan oo kale waxyaabaha noocaas oo kale waxyaabaha fankeena qiimo dilay marka hadan qodobkayga u soo noqdo heestan walaalkay Xamse miyuu leeyahay si Cabdiraxmaan baa leh taasan rabaa inaan kala cadeeyo marka ugu horeyn aan heesta bal in yar soo wada daawano aan heesta in yar idinka tuso نفتن كو محبوتا مالنتي كو يرويدو مرق سو محالي على مالنتي كو يرويدو مرق سو محالي وحينو قلنا عديمه هيستان لبدا ninka fanaanka u dhiibay iyo abwaan kan dambe heesta sheegtay iyo aniga leh labada nin ba sheegasha meesha taale laakiin nin baa sheegaysiis xaq noqonaysa oo mid baa yeelanaya hees laba qof hees ma wada yeeshaan laba maskaxood isku jirtaan male waa mid labaad ama ninkan dambe ku qabsi bareera noqonaya Cabdiraxmaan Ilkacsi ama ninka hore xatooye bareera noqonaya sababta xataa hal meel isku ma kala duwana waxba kuma kala duwana heesto waa copy and paste caadi weeye marka labada nin mid uun baa been sheegi doona marka xataa wax maartay isu ekaan karaan ma aha hal cadeyn baa meesha taalo labada hal abuur ama labada nin Xamse iyo Cabdiraxmaan Ilkacsi ay heesta ku kala sheeganayaan oo Cabdiraxmaan Ilkacsi idin baro Cabdiraxmaan Ilkacsi waa ninkan inta kadib Cabdiraxmaan heesan wuxuu soo dhigay Facebook 2018 buu soo dhigay aan taariikhda waliba sax Cabdiraxmaan soo dhigay December 19 2018 soo dhigay waa sanadii 4 bilood muddo ah ka hor ayaa Cabdiraxmaan soo dhigay 19 December 2018 weynka arkaya screenshot-ka halka Cabdiraxmaan waqtiga soo dhigay Xamsena markii taasi dhacday Xamse wuxuu sameeyay inuu isna yiri Facebook anigu 2017 baan soo dhigay markii taasi dhacday Xamse wuxuu sameeyay inuu isna yiri Facebook anigu 2017 baan soo dhigay haday taas Xamse oo sida uu sheegay ay sax noqon lahayd Cabdiraxmaan way ka qoyi lahayd Cabdiraxmaan waxay noqon lahayd inuu been sheegayo laakiin Xamse wuxuu ilaaway
oo xamsana sawir uu 2017 soo dhigay oo heestii ku soo dulqaday sida halkan ka aragtaan laakiin wuxuu mar walba xamsi ilaaway in Facebook oo hadii postiga ama commentiga la edit gareeyo mar walba la arkayo sida aad ka muuqataan circle-ka eega waxa bahalkii added one media item this post iminka waqtiga la soo geliyay markii hore waxa ku qana assalaamu calaykum ehelkii asxaabta jumca karim laakiin waqtigan screenshot kan ka soo qaadnay yesterday 10-3 content ama 22-3 content ayuu edit gareeyo heestii ku soo dul qoray hadda marka hore eeg ma taqaana assalaamu calaykum ehelkii asxaabta jumca karim baa ku qoraa Facebook edit ma qariyo halkan waa idinka ka arka marka laakiin waqtigu waa 9 March 2017 haddii aanu editkaasi jireen oo heesta beriga xamse cabdi bacow soo dhigi lahaa isaga heesta yeelan lahaa laakiin iminka eeg heesta waxaa ku qoran assalaamu calaykum ehelkii asxaabta jumca karim markan dambana heestii baa dib loogu soo qoray taasi waa caddayn toos ah inoo caddaynaysa inuu xamse heesta soo qaatay khadar waqalna waxaan u sheegayaa khadar walaal postigan aad facebookaga soo dhigtay isagana hadda screenshotkiisa idin tusayo waad ku degdegtay uma hubinin waad aragtaayo waxaa jira bahalkii waxaad ku soo qortay xamse bow saaxiib muraniga ma jiro marna boqorka muxibada iyo farxadda waa sax saaxiibka weeye laakiin labadii screenshotna waa soo barbar dhigtay kan maartay xamse uu 9kii Maarch 2017 soo dhigay وانا كو عدينaya in la edit gareeyay video aan mobilkayga ka duubay oo Facebook ahna hadhow waan ku tusi doonaa oo YouTube ka imika markaan edit gareeyay waan ku soo dari doonaa xamse uu ka saari doonaa xataa postigan haduu isku hubo kama saarin xagga dambe ka daawan doontaan marka khadarow adiguna wala ku degdegin Cabdi Fataax Mukhtaar wala la hadlay waa loo cadeeyay heestan uu soo qaaday in aanu lahayn abwaanka u dhiibay haddii hawshaydani ku soo gaadho khadar waqal fadlan waxaan kaa codsanayaa intaad hubisa cadaymaha labada abwaanka heesta marka cadaymaha la eego kala haada ugu soo qor video editingka lama bedeli karo laakiin descriptionka xataa wuu ku qoran yahay descriptionkana waa halkan baan ka tusayaa waka wuu ku qoran yahay marka descriptionka ka bedel oo abwaanka heesta leh si cadaymahana hubi social media aniga in badan iga aqoon badan baa tahay Facebook waad ogtahay hadii la edit gareeyo inay isbedelayaan sawirradana waan soo dhigi doonaa Facebook haday tahayna waa la soo dhigay halkan videogana waan halkan idin soo dhigay sawirka editing baa ku jira waa marka labaad uu ka qaaday xamse anigu xamse ma maagayo ma dhaleecaynayo laakiin xatooyu sameeyay xamse hadduu haysto cadaymo uu isku difaaco oo waxa dhici karta bil aadan baan hoo inay aniga wax aan gafo ama wax iska kay daba maraan Cabdiraxmaan ilka case abwaankan aan heesta siinayana maaha isaguba wax basharka ka duwan maxsuun maaha uu sheegan karaa laakiin anigu waan xaqiijinay in Cabdiraxmaan ilka case leeyahay waan xaqiijinay laakiin maaha maxsuun Cabdiraxmaan ilka case heesta isbuu sheegan karaa haddad cadaymo adigu waan kugu cadaynay inaad videoga edit gareysay oo aad bedeshay haddii aad hayso cadaymo heesta wala cadaymaha soo sheego inaad sawirka ka saartayna hadan halkan idinku tusayaa Soomaalidana waxaan farayaa waa anshaxumo xuquuqda qofka sida hantida iyo maalka in loo kala xadaa ay maxkamadaha la isugu galo ay arinkan oo kalena maxkamadaha la isaga galaa abwaankaasna waxaan malaynaysan Facebook ka arkay Hargeysa haduu joogo ha is arkaan abwaankana xuquuqdana hadii uu lahaado isagu Cabdiraxmaan ilka case waxaan faraynaa aniguna aan samayn doonaa inaan ku raali gelin xamse wala cadeysata heestaada hadii aad yeelan weydo tuugnimo noqotana soo raali gelin Cabdiraxmaan ilka case iyo Soomaalidaba suugaantan ciyaarta kada halkaasna videoga kaga baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cadaynta qoree la hayaa maadaama ay tahay Facebook oo Facebook aynu leenahay xamse cabdi bacow uu edit gareeyay oo sawir 2017 soo dhigay buu intuu edit gareeyay ku soo dul qoray maartay heesta ninkan heestiisa sideeda ay u soo dhigay 2018 oo sawirkan intuu soo bilaa edit
halkan bay kasii cadaynayaan. Xamse markuu saa u dhigay screenshotka oo ka qaatay oo ka saaray facebooka sawirkii iyo heestii uu ku dul hoos xadhayba si aan loo sii eegin oo commentiyadii hore looga bixiyay ahaa ile waxaan ku qornaa eheliya asxaab mala jimco wanaagsan bay ahayd si aan loo arkin commentiyadii laga bixinay dadku aanay commentiyada aan xaggan sare facebooka u soo marin isla markiiba uu ka saaray. halkan baan ka cadaynaya Xamse Cabdi Bacaaw baan ku dhufanaynaa gastaan qofka xuquuqdiisa aan rabin inaan ku fogaado haddana waxaynu gelaynaa photoskiisaan gelaynaa waxaan eegaynaa sawirka maadaama 2017 soo dhigay sawiradiisii 2017 oo soo dhigay baan eegaynaa waa kuwan waa inigan joogaba iminka facebookiisii suuq abdooliskan gado waa kuwa sawiradiisaynu eegaynaa 2017kii oo ka saaray sawiradii 2017kii ee hawshan khuseeyayba waa kuwan sawirkan sawir geeda u leh oo kale ahaa sawirkan sawirkii maaha waan ka noqonaynaa oo ka saaray sawirkii sawir dhirdaba taagan yahay kan wax kale ka qoran maaha isagii kan wax kale ka qoran maaha isagii ujeedada guudan rabaa inaan idin tuso waxa weeye sawirkii maansadii facebooka marka uu screenshot ka qaatay oo ka saaray sawiradii sawirkii kuma jiraan meesha wadani waa 2017 halkaas in 2017 kaga baxaynaa weli waa 2017 ilaa sawirkaasi waa 2017 kana waa dhir oo kii oo kale u soo dhow yahay kuma hoos qorro laakiin maansa iyo waxba waa sawirkiisa loo soo dhigtay waa laga saaray facebook marka haddaan imika markaan hadalkan soo aynu youtube ka soo gelin aan dib u soo celin wixii halkaa ka dambeeyna waa 16 iyo 2015 marka Xamse facebooka kamuu saareen haddii ay xaqiiqo tahay aanay edit ahayn kamuu saareen markiiba maansadii iyo sawirkiisii qofka isoo waxba kama saaro Xamse waxaa leenahay inoogu soo celi sawirkii iyo heestii facebooka edit si loo arko dadku cadayn u noqoto ama dee soo qir in aanad adigu heesa lahayn taasaa kugu cad Xamse waxaan leeyahay Cabdiraxmaan Ilka Case weli waxba kama saarin laakiin Xamse uu ka saaray facebooka sawirkii intuu screenshot qora ka qaatay ayuu ka saaray oo wuxuu rabaa inuu ku raad gato anigu walaalkay Xamse ismana naqaano mana jeclin qof bini'aadan aflagaadeeyo laakiin xuquuqda sida uu xuquuqda u leeyahay isagu si ka badan buu Cabdiraxmaan Ilka Case xuquuq u leeyahay waxaan isaga sharaftiisa meel kaga dhacay maaha waa waxaan sharaf qof kale iyo xuquuq qof kale aan ku ilaalinayo walaalkay Xamse waxaan leeyahay facebookii ku soo celi cadaynta qoraal aynu haysanaa waa facebook Xamse hadday aad adigu heesta leedahay oo aad 2017 soo dhigtay maxaad uga saartay walaal sawirkii maansada aad dib ugu edit gareyseen screenshotka ku soo dhigayay